marwaahinda jaamac xirsi gaani wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo warbaahinta kula hadashay xafiiskeeda ayaa ka hadashay shirkii wada hadalka ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya kaas oo ka qabsoomay dalka Djibouti isla markaasina beesha caalamku halkaasi ay ku wada halsiinaysay Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana wasiirku ugu horeyn ay bogaadisay khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyay halkaasi waxaana xustay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland halkaasi uu ka jeediyay khudbad ka turjumaysay go'aanka shacabka reer Soomaaliland wuxuu daaran yahay shir jaraa'idkayga maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha Juun 2020 taageero runtii aan ku taageerayo khudbadii dhaxalgalka ahayd ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay beesha caalamka iyo kooxdii Muqdisho ka timi hortooda iyo sidoo kale wadamada aynu jaarka nahay waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxaad jeedisay runtii khudbadii qaranka Soomaaliland uu kugu wakiishay in aad ka midho dhalin karto meelka gaadhida iyo meelmarinta qarannimada Soomaaliland oo runtii ay ku dheehan tahay aqoon waayo aragnimo dadaal iyo dulqaad badan waxaan leeyahay aad baa shacabka reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan dal iyo dibadba mudane madaxweyne ay noo cajabisay noona qancisay taariikhdana way geli doontaa oo baal dahaba ayay ka geli doontaa khudbadii dhaxalgalka ahayd ee garnaqsiga ahayd taas oo aanay wali helin bulshada reer Soomaaliland iyo qarankoodu toona inay madasha la mida ka garnaqsadaan oo sida hawsha yar ee togan u tabiyaan tabashada ay qabaan iyo wixii soo maray iyo waxa ay doonayaan iyo halka ay qarannimadooda ka taagan yihiin waxaan jecelahay kelmadda inaanay waxba farxadu isii raaridine aan ku soo koobo taageerada aan u hayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii aan la wadaagayo bulshada reer Soomaaliland inteeda kale wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo hadalkeeda si wadata ayaa ku dheeraatay taariikhda Soomaaliland iyo marxaladihii kala duwan ay soo martay Jamhuuriyadda Soomaaliland labada calan baan jecelahay inaan kala fahansiiyo kooxda Muqdisho calankii 26 Juun 1960 sida hawsha yar loo geeyay Muqdisho ama xamar loo geeyay wuxuu ahaa calan ku yimi wada hadal aqoonyahanka waxgaradka garaadada iyo salaadiinta iyo boqorradii iyo siyaasiyiintii waqtiga Soomaaliland ka talinayay ay si fudud ugala hadleen ugana dhaadhiciyeen isticmaaradii Ingiriiska in aanay u baahnayn inay intaa ka badan sii joogaan dalkooda iyaguna si hawl yar ay u aqbaleen isla markaana madax banaanidoodii ay ku siiyeen balse calankan maanta ee saddexda midab ka kooban isla markaana tawxiidku ku xardhan yahay sidee buu ku yimi calankani wuxuu ku yimi dhiig aabayaal walaalayaal ilmaadeer adeerayaal abtiyaal awoowayaal hooyooyin iyo caruur ay u qurbaxeen halyeeye iyo haldoorkii Jamhuuriyadda Soomaaliland meel marin lahaa ee meel sare gaarsiin lahaa runtii waxa u dheer geerida iyo dhibashada iyo dhibaatada hantidii iyo dhaqaalihii waxna ay kolayadii xamar ka timi rarteen waxna lala dhacay madaafiicda iyo gantaalaha diyaaraduhu ay ridayeen sidaa darteed wuu ka hawl badan yahay ama wuu ka culus yahay ama wuu ka go'aan adag yahay calankii shalay midnimada lagu keenay ee hawl yaraanta lagu helay waa calan loo haysto mag iyo diyo iyo xasuus iyo taariikh oo lagu dugsado hanada badan oo hebelale ugu dambeyntina wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland waxa ay fariin u dirtay maamulka Soomaaliya waxa aan leeyahay nimanka Muqdisho jooga ee la wuxuu ahaa bayaankii soo baxay qabiyo qoraal wuxuu ahaa bayaan sax oo dhaba oo ay dawladda Djibouti wasaaraddeeda arrimaha dibadda daabacday taasoo lagu cadeeyay rabitaanka iyo doonista shacbiga Soomaaliland ninka ka maqruuqaya dawladda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay wuxuu yiri ninka aqalka daarta adusha dhooba mariyay dadayow lagugu arag dulmi baa gudaha yaal daahiis waa diig
balse labadan daamood ka u kala dusaayow dan yar way ku aragtay ma dadkaad indhaha qaban waxaan idin leeyahay ma dadkaad indhaha qabanaysaan Somaliland waa dawlad qaran ah oo calan leh dhamaystirtay shuruudaha uu qaran leeyahay oo dhan haddii aan la aqoonsanna imisaa dal nool oo jira oo dunida ku nool oo warshado leh oo caalam leh oo shidaal leh oo aanay duniduna aqoonsan Somaliland waa qaran jira oo madax banaane qalbigiina hadig tabaan leh oo aqalkiina gudihiisa ay idin dibadda uga bixi kareen beenta aad isugu warramaysaan iska saara oo ka dawooba waxba yaanay ila sii durkin runtii oo aanan ku damqanin inamada yaryar ee aan taariikhda la socon ee aan waxba ogeyn ee ku mushahar qaata beenta facebookyada ay geliyaan